cuntooyinka aad jeclaad ayaan kuu diyaariyay meeshaan fiirihe dooqaaga adiga lee ka ciyaar maxaa u baahan tahay rootiga mise keega dalbee aha بريد جوجنو جوجنو gabadhayda maxaa ku hadlaysaa sidee wax kaa yihiin hooyo dadkan waxay u hadlayaan afka soo bax culays male balse aniga hadalkooda dhaawac ayuu igu reebtay mana laga yaabo guriga inaan ku noolaado waxaan rabaa xurriyad inaan helo nolosha gurigaan dhib ayaan u arkaa waa ku baryaa hooyo xurriyaddiisii hooy waxaan rabaa xiradeeda hore in dib liigugu celiyo meeshaasaa ku qanacsanahay jogno gabadheeda sababtoo meeshaas waxaa jooga dad qalbigooda nadiif ah waxay caynayna male balse meesha waxaa jooga dad dilaynka batay mar walbana waxay rabaan ayay dhahayaan anigana midooda ma dul qaadan karo waan ku baryahay meesheeda hore dib liigugu celiyo dadka meeshaan jooga jacayl been ayay jilaayaan laakiin meeshaas dad nadiif ayaa jooga waliba saaxiib ayaan lahaa mar walba niidii dhisaayo mar walba haddii aniga lii dhibaateenay waxaan ka doorbidooy dadkayga hore dib liigugu celiyo inaa sida aada shulaanbaan soonii garabkaaga ma taagin mar kale afduumana xaggee jirta adiga ii sheeg hooyo jogno gabadheed maxaa ku hadlaysaa soo aniga kulama joogta soo hooyadaa maahi jogno gabadheeda familka baadee noocaayeen familoo dhan aniga uma baahnin meesheedan ku laabana dadkana waxaa u sheega famil waxa la dhahay inaysanba jirin oo jirin ay ka wadaan anigana meeshaasaan ku faraxsana waa necbaa meesha inaan ku noolaadana ma rabin dadka meesha ku jira waxay u maleeyaa familka inay yihiin dad aad u wanaagsan balse mooga banaanka marka loo soo baxo familka la sheegayo dhanba inaysan waxba ka jirin oo been ay yihiin familka la sheegaaba noocana deeya famila dhan uma baahna aniga jogno aniga keligay waan isku filanahay meesheeda ayaana dib ugu laabanaa gabadheed hal mar hadalkayga dhegeyso sidaasna awaadash lama baan aniga soo garabkaaga ma taagni soo hooyada maa jogno maxaa kaa dhimo mar baa diyaaran kula joogo hooy halmid ii sheeg dadka hadalkooda sax miyaana mar walba waxay dhahayaan sharci daro ayaa ku dhalatay ii sheeg hooy aniga sharci daro maa ku dhashatay aan ku dhashtan meeshaad maxaa laiiga soo waday aniga meesheeda hore ayaan ku qanacsanaa sababtoo dadkan aniga oo keliya ayay dhaawacayaan mar walba waxay doonaan ay dhahayaan anigana qalbiga ka dhaawacma mana raba inaan ku noolaado noloshaan foosha xun waan dhibsada aniga dadkoo dhan aniga maxay ii nacaana mid walba aniga way caayna wuxuu doono ii dhahaa taas nolol miya adiga xataa diyaar u miya inaan kula noolaado iga fogaa waa ku baryaa maya jogno gabadheed sidaas maya ay dhan jogno aniga sababtoo waxyaabaha igu dhacayo dhan adiga ka mas-uula intaan ka badan diyaar u miya aniga in lii fadeecaysto teeda kale hal mid aan kuu sheega marka sababta u dheelay mataqaana waxaan rabay lacag inaa helo aan asxaabteyda caawiyo laakiin idinkaa badaan igu leh soo maaha waan shaqaysanaa diintiinan waa idin guda sababtoo amaraba noloshiina si walba haddaba waxaad igu leedihiin oo dhan waa idin siina faraha la iga qaada maraba inaan nila noolaado jogno gabadheed sidaasaa wada jogno adiga xataa kuuma baani jogno gabadheed istaag waa ku baryaa jogno barnatii aniga u imaanayo gurigiina aniga ayaa ka kaxeysanayo
waxaana igu ballanay cimrigeeda inta ka dhiman jecel iyo farxad inaan siiyo adiga waxaad sii jirta ma laha mar walba murug ayaad ku dili jirta laakiin waxaa ogaataa barnatii kaligeed inaysan ahayn mar walba aniga ayaa ka taxadiraya garabkaadan waan taagnana inaa ciddaa lagama yaabo adiga iyo familkaaga waxaa igu ballanahay inaan idinka fogeeyo barnatiina dib damba aadan wax maan meesha wuxuu ka sameeyay aniga dhibaato fara badan ayaan soo maray balse idinka jireen iyo naxariisa u baahneen ayaa digdawoodiin anigana reer kuraana inaa garabka hela marnaba ma baahna naafiya aniga meeshan go'aankayga ayaan ku imaaday ee xooga beerjila aniga kuuma muujinayo riyaan aniga guriga naafiya jooga sababtan meeshan umaadana wax kala maan ee xooga waxa waaye walaal waxba ay sharxin aniga muhiimadeeda waxay tahay gabadhaas farxad inaad siiso nolosheeda inaad ka fikirto sababtoo ah dhibaatooyin fara badan ayay soo martay mid kale xitaa diyaar waxaan inaan kaa codsado walaal taasoo ah dhibaatadii barana doraan ugu geystay waa ogola inaad adiga gabadhan uga abaalguddo sababtoo ah dadka familkiina waxay ka aaminsan yihiin dad xun inay yihiin balse waa inaad tustaa familkiga qof bin aadan ah inuu ku dhex jiro kaasoo ah adiga marka gabadhaan jecelsi waad igu tahay walaal laakiinse caafimaadkaaga oo kemo walaal xaaladeedu waa iska okey waana faraxsanay isbidkan waan ku jiraa اوكي والله هاي وحول انا هاجينا متكلي انكر وحدسا هاي نيكي انجا وحو يغو هنجب برنامج حكيس انو geedon marka waxaan ka rabaa barnaamij xaaladeeda kor inaad kala socoto dibi def waxay la kulantan aad isoo sheegto waaya ana idin ku taas walaalkayga wuxuu ii sheegay walaal maan waa mahadsantaa adiga مسلسل كان مسلسل مقدشو كيبل تي في walaalkayga waxyaabo kugu sameeyay anigana kugu sameeyay laga ma waqtiga garabkaaga ayaan taagnaa maan runaanti waxaa tahay qof aad iyo aad u wanaagsan wax walba adduunku ka dhaxayaan haddii gacanteena ku jiri lahayd baranti xaaladda ma ku sugnaan lahayn soo moolid waan ogaa jugno cunug yar inay tahay laakiin dadka waxay dhahayeen sharci daro ayay ku dhalatay gabadhan yaa iga wad masiibadan meesha taagan qaldanaan lahaa waa fiicanahay gabadheeda maxaad la weynaysaa ii sheeg aniga ma oynayo aabba way dhacdaa mararka qaar qofka dhibaato soo la kulmaa wuuna ooyaa laakiin waxaa wanaagsan
intaas inuusan kusii fogaan oo qof ad adag uu iska dhigay dadkan uu dareensiiyo inuusan daciif ahayn aniga uma jecli inaan ooyo balse haddii aad oosid dadku waxay ku arkaan daciif inaad tahay dhegeysta waa run qofku mararka qaar marxalad in uu gal laakiin waxaa wanaagsan inuu ku dadaalo marxaladaas siduu ugu gudbi lahaa dadkan uusan u muujin qalbiga inuusan ka dhiman marka waxaa wanaagsan hadaladeeda waa inaad ka baxsato oo aad adayg aad muujiso sidayna tahay waa iska soo badiyaa malaynaa aabba wax walba waan la socdaa waana fahmi karaa waaba sababtaan kula sheekaysa sooma waxaan ogaa inaad tahay gabar caqli badan misna lala sheekaysan farxadda lagu sheegayo waa sida xarashii madaxoo kale marba dhinacaya kuugu imaadaa marna marxalad murug aad gelaysaa marna farxadaad gelaysaa hadda jaceylkoo kale marna wuu kaa qoslayaa marna wuu kaa ilmaysiyaa qalin la'aantiis warqad wax laguma qori karo soomaa waa runtaa gabadheed qalin la'aantiis warqad waxba in lagu qori karin runaantii yariisteeda waxaan kuu tira waa qof caqli badan ugataa waan aqli badanahay laakiin sharci daraa dhasha soo maaha dadka waxay doonaan iska sheegaan laakiin adiga mid isku day barnaamij hadalkooda mid inaadan u dhigin hore aad ugu sii socoto haddii aad isku mashquuliso soo nima socod qalbiga inuu kaa dhaawac maayo taasina aniga kuma rabin hoy ereyga sharci darra macnihiisa waan fahmi karaa aniga xirada agoonta ayaa ku noolaa gurigan ayaa lii keenay nolol ayaa liisii dharaa lii iibiyey farxadna waa la isii sidaas ay tahay haddana dadkayga hore haba ma iloobi kara aniga sidaan ku iloobo ay ugu adag tahay mana samayn kara midaas maxaa yeele noloshaas ayaa nolol farxad loo arkaa sidoo kale aabba waxaa jirta kuleeshkaas dadka kuna waa la afligaadeeya waxaa la dhaha sharci daraa ku dhalatay hooyo malihid haabba malihid waxay doonaan ayay ku dhahayaan intaas oo aflagaadana aabba aniga waan u soo dulqaatay haddana cay kalmaa laygu daraa aniga xirada agoonta markaan jooga misna dadka ay caayaan hadalkooda waxba uma arki jirin balse halkan markaan imaaday dadka aflagaadadooda maxaan ugu dulqaadan la'ahay aamba uma dulqaadan karo maxaa yeele waxay doonaan ayay dhahayaan anigana dulqaad ma lihi qof walba waxay jeceshaan aniga inay dhibaatayso sababta xumaatada u dareemaysa wax kalena ay noloshaada isbedesho haddee sidaas tahay kadib waa baalmidaa lii sameeya dharxana lii geliya raashin fiican ayaa lii siinin balse hadalada xunaa liiga dhaafo sababta qalbiga ay xanuunaya mana u dulqaadan karo gabadheeda saas waa arrin ugu horeeya waad la socotaa hooyada si ay ku hesho xanuun fara badan inay u soo martay ugu dambeyn waa ay ku heshay xitaa diyaar waxay u tahay farxad inay ku siiso dunida intii aad saaran tahay go-aanna waxay ku gaartay gurigan inay isaga tagto sababtoo ah gabadhaada farxadeeda wax walba waa inaad u samaysaa tiyana
kuu keenay waana kuu jeeda inaad murugsan tahay gurigan inaad joogto haddii aad u baahan tahana waa inaad maskaxdaada degsataa haw kafayga cab مسلسلكani wuxuu gaari u yahay muqdisho cable TV mahadsanid macquul kol muhiim inuu yahay haddii aad wax baahdan waa ii yeeri kartaa okay isdejihe mahadsanid halo saadad guriga banaankiisa ayaan kugu sugayaa sabab waan ogahay inaad hadalkayga maqleen laakiin waxaan ahaa aniga saaxiibka waxaana wanaagsan hadalka inaan kala dhegaysano oo aan ismaqalno idageysa arjid aniga aniga soo dhaqsee مسلسلكani wuxuu gaari u yahay muqdisho cable TV way bixisaa hooyada ayay darteed ay noogu fogaanaysa adiga ma celinaysid miya way micnanka markii ugu horeysa oo aan aabba macaani dhahday maxaa naxariistaada ayaan caawo dareemay سنة ما أنت كل كان جوب. راشي معنا كوسو كوي كل كعصان يالو ليه ودالي يوم كعصان تدريس.